resultigii tarbiyadiisana waa ka hadda u jeedno maasha allah wiil yaroo oo khaladkiisa ictiraaf garaysanayo wiil yaroo si qiiro leh u hadlaayo wiil yaroo weliba oo garanaya inuuna aqoon daro u keentay wuxuu dhahay xasan sulaymaan qofkaana ka siinin waa wiil youtuber ah soomaali ah 22 sano jira 3 sano youtube oo social media ku jira oo youtube leeyahay wuxuu haystaa 24 milyan oo subscribers ama dad ku xiran 24 milyan oo haystaa ilaahay u barakay maasha allah wuxuu youtube kiisa wuxuu usually ka hadlaa gaming waa William dhalinyaro youtube kiisa guriga si dhulku ku sameyn jiray oo markuu bilaaway waa zero ka soo bilaaway qolkiisa dhulku ku sameyn jiray kursi xataa oo ku fadhiista ma u isticmaali jirin kursi haddana maasha allah wuxuu qabaa 24 milyan oo dad ku xiran youtube kiisa maasha allah yani marka wiilka wuxuu sameeyay amal khayri wuxuu sameeyay wiilkan shirkadaha ay ku dheerayn wuxuu sameeyay xasan sulaymaan mashruuca inuu lacag aruuriyo 12 beri 12 days oo muxuu ku jira meel oo isku xiray oo ka soo bixin go'aan wuxuu ku qaatay ilaa ayuu ka keeno ilaa ayuu ka aruuriyo أصلا سنة فيديو جيدا تعليق عن كبحنا أفتر أنا راح أجي لناس كثير نزلوا مقاطع وتكلموا عن أشياء أنا قلتها في البث المباشر اعتنق الإنسانية ثم اعتنق ما شئت من الديانات ويوم طلعت من الفرحة حضنت بنتين هذه الأشياء لعلك تنصدم من عزيز المشاهد أو أنك ما أعطيتها انتباه أنت تنصدم إني قاعد أقول لك الكلام هذا إي نعم أنا سويت الأشياء هذه إي نعم أنا قلت ما يهم الدين إي نعم أنا قلت اعتنق الإنسانية ثم اعتنق ما شئت من الديانات إي نعم لما طلعت حضنت بنتين إي نعم أنا سويت كل هذا الشيء في كثير دخلوا بنيتي أصلا وقالوا ولا فكروا دخلوا بنيتي قالوا هذا كافر وقاعد يسوي كذا وكذا وانتبهوا منه والله في قسم بالله عدد كثير بس والله ما ابي اذكر اسامي لاني انا مسامحكم تدرون ليش؟ لاني انا غلطان ما راح اجادل بالنقطه هذه يا عزيز المشاهد انا غلطان يوم قلت اعتنقوا الانسانيه ثم اعتنقوا ما شئت من الديانات انا غلطان بحثت عن الجمله هذه وعرفت معناها الحقيقه انا غلطان يوم طلعت وحضنت بنت مع انها مو من عوايدي ولكن انا غلطان واعترف بغلطي انا انسان يا جماعه انا انسان مخطئ انا ماني ملاك انا انسان مخطئ وخير الخطائين التوابون مو لان عندي 24 مليون نعم بالله وهذا هو المقطع الثالث بعد ما أو فلا وحولها أنا خلطان صوت حايف أنا خلطان قلت كيس سوق قرنا ما شاء الله يعني سي وقرنا وحماسة لي سي وقف هنسان قلت كيس وقف قرنا وقلت كيس وحولها مبرر يوم مش يعني reason ما هاي سعنا درادي دا هاي يوم أوجين يو marmarsiye ma keenayo dhah waxaan qiranaa in qalad aan sameeyay marmarsiye namar inaan ka bixiyo laakiin niyadeyda kuma jirin ma fahansaneen erigaan dhahay qiimuhu leeyahay iyo macnuhu leeyahay iyo saameynta iyo dhibaatada ka imaan karta yani insaannimada horumari first bini'aadanimada ka horeyso diinta iyo diimaanka kale bini'aadanimada aan ku focus gareyna koodii hore ka bacdi diimanka noo horeyso wuxuu dhahay taas waxay marka ay diintii bini'aadanimadii waxay cizeynaysaa ay ka hormarsiinaysaa diinteena inuu diinta inay bini'aadanimada ayna kaamilaynin inuu diinta inayna ay sakan tahay diinta iyo diimanka kalena ay isla mid yihiin ina diina cinda allahi islaamna ilaha dhahay mugta so ina diina cinda allahi islaam hadii la dhahay macnaata wax ka horeeya diinta ma lahan wax kaloo la sinaan karo oo lasla barbardhigi karana ma jirto so khalad weyn oo khalad waxay ahayd oo caqiidada ku saabsan ereyga laska dhaho way dadka badan ay iska isticmaalaan iyagoo dhahayaan muhiim ma aha qof walba qofka diintiisa waxa muhiim ah bini'aadanimada waa erey laska dhaho juhligii jaahilnimada dadka ka keenay laakiin ereyga da u fiirsatid waxaa qofku خطأ بدن ذنبي بدن وإلهي حقيقة سكجلا because وحا leedahay مهم ما أها دينته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله مهم دان إهن محانا نو أبو رب ودينته إن الدين عند الله الإسلام so وحا نتوسينيسا إن أريدا سوكلتا أسكيب إلالينو وحو نتوسيي حسن سليمان إن قفل بخلد كيس هدا 24 مليون هدا سبسكرايبرز قلتي مستدكو وحريه هاي هدي لو بقولوا قفكو وحريهين إيه 3 كون إيه 5 كون مهمة وحوا بني آدم إننا كل جينا بني آدم إننا كل جينا إننا قدمينه وكل خير الخطائين توابون عنها وحودها وحنا قدمينا كلمة داس هاي وحودها وحنا كلو قدمي مركو ماشي كسو بحي فرحد رادي مركو ماشي laga soo bixiyay oo aruuriyay 11 lacag badan oo aruuriyay 11 milyan oo aruuriyay markuu lacag ka soo aruuriyay meesha laga soo bixiyo farxadii daraadid wuxuu laba gabdhood
laba gabdhood dadkii kusoo orday laba gabdhood ku jirtay oo hag siiyey mise xabadka geliyey I don't know exactly waxa la laba gabdhood oo adig hag siiyey oo salaamay labadaas gabdhood wuxuu dhahay qalad ahayd ma ahayn in aan hag siiyo laba gabdhood in aan hag siiyo ma ahayn uu dhahay ma ahayn in aan ereygaas dhaho ma ahayn in aan يعني قلت لبضات قلداس قلو وحول هاي قلت كيجنا من برا مسمينا وقلدمي سو حنكو فرح سنة هاي ويل كان وحنكو فرح سنة هاي ويل كان ويل صومالي إنه يهاي ويل والدين صومالي سو كريسين وحان لا يهاي همبلي والدين تيسا جزاكم الله خير إلهي هاي نكدق ويل كين ويل بركيسن ومجتمع إسلام كان وأنفعه إلهي هاكو أنفع أمد إسلام بإذن الله so I'm so happy parents Soomaaliya inay waqtigan oo kale dhalinyarada badan hadda waagaan la joogo marabaan in la saxo badana ma qaataan maskaxdooda uma furaan markii wax qof wax dhahay arkaan way ka sii jeestaan way ku sii adkeystaan haddana waxaan kale oo ka qaadan karnaa wiilkan videogiisa mise experience-giisa labo wuxuu dhahay labo qof saameyn igu sameysay qaladkayga i tusisay in dad badan ka hadleen videogiisa waa lagu kacsanaya anta dhan especially carabta social media dhanka carabta oo YouTube-ka carabta dadka dhan oo shuyuukhtiba u badnaadeen dadka oo ahlu diinka ah way ka wada hadleen qof dhahay wiilkan si qaldan oo lacag u ururiyay lacagtiisa UNHCR-ka iyo munadamada UN-ka oo ilmaha reeb gareyso mise ilmaha ay xuquuqda bini'aadamka ku tuntaan lacagtan qaadanayaan waa la dhacay dad dhaheen waa la isticmaalay dad dhaheen agenda kale wataa dadka ilmuhu wiilasha dhalinyarada wuxuu rabaa inuu ilxaadka iyo kusoo dhunto oo wuxuu rabaa inuu ilxaadiyiin ka dhigo dad badan adi suu dhan badan ay imaado dadka way ka shakiyeen waxay dhaheen lacagtii oo ururiyay khayrkii dhan waa dadka waxay dhaheen lacagta in saas loo aruuriyay dadka bini'aadamka wuxuu tusinaa wuxuu ku dhahay qasa walba iyo guri walba oo la gaaro waxaa dadka bini'aadamka afkooda dhamaado wax walba waxay kasoo bixinayaan waxaa muhiim ah qofka inuu ogaado niyadiisana oo tajiisado oo ogolaado in dadka ay mar walba wax ka sheegayaan pleasant la qanci karin bini'aadam tahay adduunyada inay nuqsaan tahay wax kasta complete ma noqonaysa happiness kasta waxaa ka dambeeyo dhibaata ka dambayso wax kastoo happiness hada samaysid badanaa waxaa ka dambeeyo alam waxaa ka dambeeyo nuqsaan because nuqsaanka adduunyadan joognaa taasayna xasuusinaysaa wiilkan wuxuu sameeyey waa wax weyn way ahayd laakiin maadaama adduunya joogno natiijatu bashar ahaan nuqsaanka adduunyada oo la kulmay iyo dadka rada facligii dadka bini'aadamka oo bini'aadamkii koodor qof u maleynaa malahan inuu sameyn karo waxaas markuu sameeyay qof walba waxay noqotay in laga hadlo anigoo waxaan ku faraxsanahay shaab Soomaali inuu sameeyay